ka hadlaynaa macdan muhiim ah xilli ay noo tahayba habeen iyo maalin. Macdantani waa macdan aan horey uga soo hadalnay macdano kale oo ay deris la tahay. Macdantan waa macdan inta badan laga helo badaha meelaha deriska la ama buuraha ama webiyada. Macdantan inta badan waxaa iibsada dowladaha, waxaynan ku jirnay fiidiyowyadeenna ugu dambeeyay macdanta dowladuhu xiisaynayaan sida caalamiga ah loo kala iibsado dowlad to dowlad ama dowlad iyo dowlad. Waxaan hadda isla fahmaynaa macdan hore ayaanu ka soo hadalnay. Macdantaasna waxaan ku soo lifaaqnay macdanta loo yaqaano monazite. Monazite oo hadalkii hore uu nagala soo galay, hadda waxaad ka dooni kartaa sheekada haddaad culuskeedii rabtid fiidiyowga ka horeeya ama ku xiga. Sidoo kalena waxaan soo dhigi doonaa isla fiidiyowga linkiga, adiga ayaa raadsan doona. Waxa kaliya ay wadaagaan waa deris iyo isku bah, waxna way ku kala duwan yihiin. Waxaan idinku soo tusay background-ka fiidiyowga sawirro kaga hadlaya sida macdantan curiyayaasha ay ka mid tahay ay u ekaan karaan. Macdantani waa macdan yar oo ilma aragtida deris la ah markii la yiraahdo monazite. Monazite waa macdan radioactive leh, sidoo kalena caalamka qiimo wanaagsan ka joogta markii loo cabiro habka qiimaynta caalamiga ah. Sidoo kale waa macdan ku jirta telefoonada dadku isticmaalaan, sidoo kalena hubabka nuclear systemska ama ha ahaado heer rayida ama ha ahaado heer dagaal waa loo isticmaalaa labadaba. Hadda inala sii soco qaybtii sheekada culuska ayaan sii gelaynaa sharaxaadeeda. Monazite waa macdan qaali ah, sidoo kale waxay ku jirtaa macdanaha culus oo loo yaqaano heavy minerals. Waxaana laga helaa ciidda madow ee xeebaha, iyada oo ka qadar aad u yar 3% ilaa 1% ilaa 0.5% ama in hal barkiisa ah. Macdantan markii aan halkaa joogno waxay kaloo caan ku tahay rare earth elements oo loo yaqaano REEs. Dadka qaarna waxay ku magacaabaan tronium radioactive, iyaga oo ah iyada iyo tronium laba ciid oo aad isugu dhow haddana isku meel laga helo. Tronium marka hore ayay joogtaa tronium, laakiin markii laga sii shaqeeyo ayay usii gudbaa. Intaa markaan isla fahanno, marka la joogo dhulka buuraha leh waxay ku jirtaa dhagxantan granite iyo pegmatite iyo greeneis oo ah macdanaha ay deriska la tahay marka la joogo meel buuraley ah. Afrika markii la joogo wadamada ugu badan ee laga helo South Africa ayaa ah, Soomaaliyana waa wadan laga heli karo. Sidoo kale Brazil iyo China iyo wadamo kale oo ay ka mid tahay wadamada aan soo wado sida Australia iyo India ayaa laga helaa. Wadamo kale oo caalamka aan laga baarin ayaa jira. Marka aad doonaysid adiga ayay kugu xiran tahay sida aad baahi iyo muhiimad u siiso. Qiimaha markii aan joogno monazite waxay joogtaa $400 ilaa $10,000 halkeeda tan ama beyrtan. Marka aan intaas qiimeynayno waa macdan aad u qaali ah. Sidoo kale waxaa jira macdano badan oo meelaha laga heli karo oo deris la ah. Macnaheedu ma ahan haddaad raadisid inaad keligeed raadinaysid, laakiin macdanta dadka baara ee aqoonta u leh waxay u baaraan baahbaah. Waxaa kaa caawin karaa arrimahaas buugga macdanta Soomaaliyeed oo aan hayno oo aan hadda ku kordhinay qayb cusub oo lahaan jiray 58 page. Qiimihiisuna uu yahay hadda $3 weli, laakiin wax lagu sii kordhin doono mar dhow lacagtiisa isagoo aad PDF ah u helaysid hadda.
waxaa warbixintan idinla wadaagaya anigoo ah Cabdullaahi Siciid Sheekh Xasan. barteena daaraan ayaan xogtaan idinku soo siinay. ku soo dhawaada si haddaad nagu qanacsaan halkan waan idin qancin doonaa.